maalin wanaagsan saaxiibada ku xiran janalka galka media iyo sidoo kale barteena Facebook ee galka media waxaan warbixinteena galka media maanta diiradda ku saari doonaa musharaxiintii ugu badnaa oo xilligan ka tanaasulaya tartanka doorashada xilka madaxtinimada iyo sidoo kale qorsho cajiib ah oo xilligan la soo warinayo in ay markaa bilowday madaxtooyada Villa Soomaaliya waxaana markaa la aaminsan yahay in qorshahan uu yahay kadib markii lacag la'aan ay soo wajahday xubno badan oo markaa caan ah oo kamid ah midowga musharaxiinta uu tartamaya xilka madaxtinimada ee Soomaaliya madaba in madaxweyne Farmaajo xilal muhiim ah uu ballan qaaday xubnaha xilligan ka tanaasulaya tartanka doorashada lacag intee in la eg ayay madaxtooyada Villa Soomaaliya qorshahan ku bixinaysaa sidoo kale maxaa ka jira in xilligan khilaaf uu soo kala dhaxgalay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka cadaadis intee in la eg ayaa xilligan saaran xubnaha midowga musharaxiinta warbixinteena galka media ayaanu maanta diiradda ku saari doonaa balse marka hore daawade subscribe inoo saar janalkeena galka media sidoo kale like iyo follow page-keena Facebook ee galka media warbixintaana u sii share garay saaxiibadaada kale mahadsanidin wahagaag haddii aynu ku bilowno ilo xogogaala ayaa xilligan waxa ay xaqiijinayaan kadib in muddo ah markaa xubno ka mid ah midowga musharaxiinta xilligan ay muujinayeen lacag la'aan baahsan oo ay soo wajahday dhankooda ayaa la aaminsan yahay in qaybo badan oo markaa ka mid ahi gaar ahaan siyaasiyiin magac iyo weliba maamuus ku leh Soomaaliya in ay ka harayaan tartanka doorashada sida ilo xogogaala ay xaqiijinayaan waxa qorshahan markaa sidoo kale la soo warinayaa in ay gadaal ka riixayso madaxtooyada Villa Soomaaliya dhaqaalihii ugu badnaana ay ku bixinayso warar saacadihii ugu dambeeyay soo gaaraya galka media ayaa xilligan waxa ay markaa xaqiijinayaan in xubnaha kale ah Daahir Maxamuud Geelle Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo sidoo kale Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ay ka mid yihiin xubnaha sida xilligan ilo xogogaala ay xaqiijinayaan magacyadoodana aanu helnay inay ka hari doonaan tartanka doorashada kadib markii dhaqaale yari ay soo wajahday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arrintan la sheegay inuu dhaqaale weyn siinayo xubnaha xilligan tartanka doorashada ka tanaasulaya sidoo kalena xilal muhiim ah uu siin doono haddii uu ku soo noqdo xilligan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya oo abaabulkii ugu dambeeyay uu ku guda jiro madaxweyne Farmaajo xubnahan ayaa la aaminsan yahay in sidoo kale khilaaf culus uu soo kala dhaxgalay iyaga iyo waliba midowga musharaxiinta gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo la aaminsan yahay inay xilligan iyagu kala furfurayaan xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka kadib shaki soo kala dhaxgalay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka afartii sano aynu ka soo gudubnay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa dagaal adag ku jiray waxaana la aaminsan yahay in lacagihii yaraa ay haysteen ay uga baxday shirarka iyo waliba hoteelada ay ku qaban jireen waxaana la aaminsan yahay in qorshahan Villa Soomaaliya saacadihii aynu ka soo gudubnay uu ka jiray guux aad u weyn taasi oo ku saabsan farxadda xilligan u soo hooyatay Villa Soomaaliya oo guusheeda bannaanka mar kale uu yaallo gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ruuclo orod ugu jira sidii mar kale ugu guuleysan lahaa tartanka doorashada xubno badan oo ka mid ah midowga musharaxiinta oo xilligan isdhakinaya ayaa la aaminsan yahay inay iyaguna qayb ka noqon doonaan wadada ay mareen saaxiibadooda oo la aaminsan yahay inay xilligan lacag aad u weyn ay ka heli doonaan Villa Soomaaliya qorshaha xilligan isdhiibista ee musharaxiinta qaar ka mid ah ayaa la aaminsan yahay inay Villa Soomaaliya lacag aad u weyn ku bixinayso waxaana xalay habeenkii ahaa Villa Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diyaarinayay qorshihii ugu dambeeyay ee lagu kala furfurayo xubnaha mucaaradka haddaba daawade maxay kula tahay xilligan qorshaha uu bilaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sideese xilligan uga guul gaari karaa tartanka doorashada fikirkaaga waa inoo muhiim qaybta hoose ee commentiga inugula wadaag annaga oo mar walba ka fogaanayna wax kaste oo dib u dhigi kara horumarka dalkeenna waana rajaynaynaa inaad aragtidaasi nala qaadataan warbixintana u sii share gareeya saaxiibadiina kale mahadsanidin